jacaylkii jaamacadda iyo qaxwaha. Wuxuu ku yidhi, ku soo dhowow koob qaxwo ah. Waxay ugu jawaabtay, mahadsanid aboowe. Kolkaas ayuu ku yidhi, kan waa koobkii afraad ee aan ku keeno, ma cabtay dhammaantood? Waxay ku tidhi, maya, aniga qaxwada ma cabo. Maxay kula tahay marka? Ayay weydiisay, maxaase kugu dhacay? Wuxuu yidhi, aniga maqaayadan ayaan ka shaqeeyaa, balse labadeena waxaan isla dhiganaa hal jaamacad. Waxaa laga yaabaa ishaada inaysan iqaban, laakiin had iyo jeer jaamacadda ayaan kugu arkaa, waana kaa warqabaa, nasiib xumase isma naqaan. Waxay tidhi, yaah, maxaa tidhi? Haa, waan dareensanahay inaadan i arag, laakiin waan ka warqabaa xilli kasto. Marka qososho ayaan qoslaa, marka murug dareento waan murugooda, ma aqaan sababta, balse marar badan adiga dartaada ayaan dagaal u galay. Qofkii ilxun kugu eego iyo kan hadal qaldan ku yidhaahda igama badbaadaan. Iyadoo yaaban ayay ku celisay, maxaa tidhi? Wuxuu yidhi, deganaan ma dareemo maalinta aan ku arag. Markaad jaamacadda ka baxdo waan ku daba kacaa ilaa aad xafadaada ka tagto, subaxdiina bannaanka ayaan kugu sugaa ilaa aad ka baxdo. Bok ayay tidhi, nagu soo celi mawduuceeni hore, xaggee sheekada inoo socotay? Maya ayuu ku jawaabay, ma jirin wax mawduuc ama sheeko inoo socotay. Waxay tidhi, wuu jiray mawduuc, sow imaadan weydiin qaxwada aan dalbaday, balse aanan cabin. Haa, taas ayaa ku weydiiyey, ayuu la soo booday wiilkii. Waxay tidhi, waxaan halkan u imaadaa si aan adiga kuu arko oo keliya. 4 mar ee aan qaxwada dalbadana wax kale ma ahane, waxaan rabaa oo jeliya inaan ku arko oo aan uska kaa daawado, ilana hadasho, weliba dalabka iga qaado. Agaah, meeshaan isgaadgaad ka socda. Waxay sii wadatay hadalkii ayadoo dhahaysa, 4 marka waxay ila mid tahay aniga oo aan 8 ku arkay. 4 mar aad dalabka iga qaaday iyo 4 mar oo dalabkayga ii keentay. Ogowse, aniga qaxwada ma jecli, laakiin adiga ayaan ku jeclahay. Fikirkaagu waa muhiim. Nafaduuli ama nafaani, labadaba waan soo dhowaynaye. Hana ilaawin follow, like iyo subscribe. Mahadsani.